مدن يالي مروين dadka sharafta badan ee reer kala baydh rag iyo dumarba waxaan idinku salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaanu aad iyo aad idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aa u soo dhowayseen wafdiga ay hogaaminayaan guddoomiyaha baarlamanka cusub iyo musharaxa madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye sida aa u soo dhowayseen qiimaha badan ee aa u soo baxdeen ee kalgacalka leh walaaltinimada leh ayaannu idinka mahad celinaynaa waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa saaka waxaannu ka soo baxnay laascaanood markaannu 10 kilomitir ka soo baxnay wixii ka dambeeyey waxaannu dhex maraynay dal nabad ah iyo ummad nabad ah oo isjecel oo walaalahoo wada deggan iyo doog iyo caws iyo qurux aanan beryaha ku arag dalka kan oo ka baxay dhulkii daraato abaaraha iyo oodoluflufka iyo colaadda iyo dhiiladu ka jirtay ayaannu saaka aragnay ilaahay ugu mahadnaqaynaa isbeddelka intaa leeg ee muddada yar ilaahay beddelay wixii degmooyinkan yaallay soomaalidu waxaa been way sheegtaa beense ma maahmaahdo waxa la yidhi col iyo abaarna way wada degaan nabad iyo caanana way wada degaan waxaan jeclay halkan inaynu dadkeenna sharafta badan halkan maanta wada jooga waxaa dhici jirtay maalmo badan oo aan laysu soo hiloobi jirin oo aan laysa soo gaadhi jirin oo la kala gabban jiray hadday tahay hareeraha iyo hadday tahay dadka deegaanka wadaaba maanta sawaynagaa sida quruxda badan ee ciidda ka badan moodo dadka sidii ayaxii inaynu isu soo wada baxnay inagoo isu soo hilownay waxaan idinka codsanaynaa ama aan idin weydiinayaa shacab yahow reer somalilan oo gobolkiinna iyo degmadiinna weliba waayaarag u tihiin ma waxaynu ku noolaanaa dalka wanaagsane ilaahayna siiyey ma col iyo abaar baynu ku noolanaa waynu doorannaa mise waxaynu ku noolaannaa nabad iyo caano iyo maynu qaadannaa nabad iyo caano ma ogoshihiin caanihii waa kuwa halkaa yaalla hohoobtina waa ta halkan taalla nabaddina waa ta wujuuhdeenna ka muuqato maanta qof baqanayo qof hareera eegaya midaynaguma jiro war ma laba laysku doorsadaabaa cahdigaa ma gelaysaan ma isnabad gelinaysaan ummaddiinna dhinaciina ma ka raacaysaan waxaannu idiin ballan qaadaynaa inay caddaaladi timaaddo waxa yaree somalilan yaalla in gacanta la wada geliyo inaynu caddaalad ku qaybsanno inaynaan qabyaalad isku dhicin inaynaan qabyaalad isku riixin ee sidii ilaahaynaynagu ogaa ingiriisna inagaga tegey wixii aynu wada lahayn aynu hareeraha ka fadhiisannaa markaannu hargeysa ka soo baxaynay labadoodeenu wadnaa midna guddoomiye ku-xigeen buu ahaa baarlamanka ah ninna mustaqbalka musharaxa madaxweynaha weeye baashe maxamed annagaa idinka furannay kursigii labaad ee dalka ayaannu saaka keennay isagoo tunka u saaran oo ah guddoomiyihii baarlamanka idinna waxaan idin soo gaadhsiinay guddoomiyihii labaad dee isna halkii uu doon inaad gaadhsiisaan idinkaa laydinka doonaya waa muuse biixi aad iyo aad baa u salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu